sheekooyinka guryaha ee bariga wadanka Kenya oo loo tiriyo jinniyada amaba kuwa habeenkii orda jiilal ayay soo jireen sheekooyinkaasi markii ugu horeysay ayaa BBC Africa ay banaanka waxa ay soo dhigtay xaqiiqda ka dambaysa muuqaaladan mucjisada ah waxayna duubtay qaar kamida dadka habeenkii orda warbixintan waxaa laga diyaariyay gobolka Homa Bay waxaana ku jira waxyaabo laga cabsado Usmaan Cabdi Xasan ayaa ka waramaya waa sida in ay saacad ku shaqaynayaan habeen kasta 10 fiidnimo waa xilliga la garaaco aqalka Margaret Onyango qofkani habeenkii ayuu ordaa waa markii ugu horeysay ee muuqaal laga duubo iyagoo orod ku jira falal kuwan la mid ah ayaa ka dhacaya dhammaan miyiga Kenya qoomiyadda Luwe ee bariga Afrika waxay aaminsan yihiin in dadka habeenkii orda uu jinni ku qasbayo inay ka cabsiyaan dariskooda habeenkii Margaret waxay ku jirtaa cabsi ay ka qabto kuwa habeenkii orda balse hadda markii ugu horeysay ayay arki kartaa kuwa ka dambeeya orodkaas waan ka baqaa wax kasta oo ay samaynayso sida aan u arkay inay u dhaqmayso qof ayay dili kartaa weerar iyo xatooyo midna ma sameeyaan ujeedkooda oo keliya waa inay dariska ka cabsiiyaan inta ay leeyihiin kuwa habeenkii orda ayaa adkeynaysa in la helo cid diyaar u ah inay si furan uga hadasho balse Grace iyo ninkeeda Sam ayaa qirtay in ay habeenkii ordaan haddaan ordin waan xanuunsanayaa sida darteed waa inaan ordaa markaan soo laabto farxad ayaan dareemaa Grace waxay naga ogolaatay inaan duubno iyadoo habeen ordaysa habeen orodka khatar ayuu leeyahay sida ku dhacday mid hore u ordi jiray sasa vile nilienda kufanya hiyo kazi yangu kama naenda habeen anigoo sameynaya orodkayga caadiga ah ayay dad dabin ii dhigeen na watu walinitega kadibna biyo kulul ayay igu shubeen wakanichoma na maji moto si uu tusiyo lamaanahan heerka ay dhibaatada gaari karto waxa uu diyaar u yahay inuu soo bandhigo dhaawaciisa waa sida aan u dhaawacmay inaaskee ujungu saala xanuun badan ayaan dareemay marka uu shaarka iska bixiyay dhaawaciisa ayaan arkay waxaa noo fiican inaan iska dhaafno habeen orodka si kastoo ay u go'aansatay ugu dambayn Grace iyo qoyskeeda waa la helay iyadoo habeen ordaysa ayaa la arkay cidda ay tahayna waa la aqoonsaday dadka tuulada waxay go'aansadeen inaan ka tagno ama guriga ayay nagu gubayaan dhibaato ayay noo keentay marka waxaan go'aansanay inaan meeshaas iskaga tagno lamaanahaas way ka tageen bulshadooda Grace habeenkii ma ordo habeen orodka dadka qaar wuxuu u yahay falal ay cabsi ku raadinayaan balse waa khatar dhab ah kuwa aan awoodin ama diyaarka u ahayn inay xanuunka iska reebaan waxaa suuragal ah inay dhibaato la kulmaan